بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا igu qaaliga meel walba adduunyada daafida ka joogtaan waan idin salaamay salaan kadib dhammaantiin waxaan idin rajeynaa in aad farxad iyo caafimaad qabtaan alxamdulilah aniga waan caafimaad qabaa alxamdulilah waa maalinta shanaad oo ramadaan ilaahay ha inaga dhigo kuwa farxad iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash ku dhameysto ilaahay ha ina gaarsiiyo ramadaankan ramadaantiisa anagoo bashbash iyo barwaaqo maasha allah galabta afurkan yaraa kasoo tuuranay maasha allah waa wax yar oo basiida oo waqti badan aan ka galeynin aadna u macaan badan meesha waxaan ku haysanaa barbecue hilibka loo yaqaano waa chicken aan ka hagaajiyay insha allah tacaala qaabka u hagaajiyana waa ila arki doontiin asxaabteeda soo dhawaada maasha allah meeshaan waxaan ku haysanaa malawax yar oo nafaqeysan aan inaba caadi ahayn asagana sida aan u hagaajinay iyo waxyaabaha aan ka hirgelana waa arki doontiin waa wax yar oo borotiin aan laga sheekay karin malawaxa aniga ku haystaa ma fahanteen maasha allah cabitaankeena timirteeni iyo shurbadeeni waxaa anaga marnaba meesheen shurba la'aan ma aha kartaa furka dhanba shurbad la'aan ma shaqeynayo ma garateen marka asxaabteeda hadirtaan waxaa hagaajisanaynaa chickenka aan barbecue ka hagaajinaynay insha allah tacaala hadirtaan waa ila arkaysiin meesha waxaan kusoo diyaarsaday wax yar oo chicken adiga nus kiilo wax yar ka reebay waxaan kusoo darsaday adiga ayu spices oo markaas gurigaaga kuugu diyaarsana kusoo darsanay hadda waxaan ku darsaday waa barbarooni iyo haruud babrik waa barbarooniga shiidan iyo wax yar oo haruud iyo wax yar oo xawaaji isku dardara xawaajka ma ka badinayay wax yar oo been aan ku dara insha allah iyo cusbo adiga hadba wixii jikadaada markaas kugu diyaarsan wax aadan haysanin kuma qasbanid wax yar oo nacnac kusoo darsaday saa hore idinkugu sheegaba markaas wixii jikadaada yaala ku darsanaysaa u isticmaalaysaa wixii gurigaaga aan oonin kuma qasbanid soo maahan maasha allah alxamdulilah asxaabteeda hadirtaan waxaan kusoo shubtay wax yar oo liin dhanaan haddii markaas aa yoogad haysatid waa ku darsan kartaa haddaadan haysanna kuma qasbanid waa iska dhaafi kartaa hadirtaana waxaan kusoo daray wax yar oo saliid maasha allah waxaan hadirtaan kusoo darsanaynaa yaanyo inoo diyaarsaneed waaye yaanyadaasa wax yar hal qaando buuxdaan kusoo daray maasha allah kabacdi waa isku qaseynaa dhuuxa iyo lafaha maaragta aan iska dhexgelinaynaa digaagta iyo waxyaabihii spaceska dhadhanaanka aan ku darsanay insha allahu tacaala markaa dirtan aan gacanta la galaa si fiican aan usoo qosaa markii aan si fiican iskugu soo qoso kabacdi waa arkaysiin waa kana walaalihii waad aragtaan soo dhexgeliyay baca afka ka saara fijiijka qaybta hoosaan gelinaa adiga hal saaco meeshaas igu sii diyaarsanaana hadirtaan inta oo chickenka noo xariisan yahay waxaa samaysanaynaa malawaxeeni maanta wax kale waa ma fahanteen yaa malawaxeeni maanta caadi ma aan lagama sheekay karo waxaa isku darsaday macaan iyo dhadhan iyo borotiin whipping cream waaye waa creamka tortaa lagu sameeyo wax yar ka qaadanaynaa insha allah wakaasaa ujeediin waa creamka caadiga haddii asagoo whippingka oo caanaha dareerada haddaa haysatid waa ku qasan kartaa maasha allah kaasaa fiican ana hadda boodharka haystaa boodharka ku qasanaa wixii aa haysatid mar walba ku qanacsanaa wixii aa haysatidna mar walba quruxso insha allah tacaala hadirtaan kartoonkiyaa soo furay kartoonka waxaa waaye warqadahan yararka gudaha uga sii jiro hal xabaa fura asaga dhan ma wada isticmaali doono insha allah wax yar oo boodharkan isticmaala waad aragtaan u maleynaa boodharkaas isticmaala adiga wax yaraa ku shubtay waxaan kaloo kusoo shubtay qaando maxaa lahaye qaando maan dhahay waxaan kusoo shubtay wax yar oo caano qandaca waaye birtan oo doorshaha lagu qasaan soo qaatay tii oo korontada ma ahaya waa mid caadiga gacanta waaye 1 iyo 2 cabaar yaraa ku qasaa wax yar xunba markuu ii keeno andeen hadirtaan waxaan ku darsanaa markaas ka bacdi caanihi aan soo badsanaa alaadula waxaan u qasanaa malawax maasha allah kastara ku daraa adii mid kor dhacay wax kasta aan ku daraa waa ila arki doontiin hadduu ilaahay yiraahdo saa u jeedin caanihi ku soo darsanay caanahana mar walba waa qandac mar walba bur kasta aqasiis caanaha ama biyaha ku qasiis qandac cadeeyeen maasha allah burkaaga soft ku noqonaa waxaan kusoo darsaday hal xabo ukun haddana waxaan kusoo darsanaa xabadii labaad waa 2 xabo ukun wow maasha allah waxaan hadda u baahanahay carfiso ama faniilo aniga faniiladana haystaa
hadaadan haysanna kuma qasbanid heelka ku darsan kartaa heela inta tumatid qaybta qolfa iska bixinaysaa miraha buuda ka dhigana insha Allah miraha ku darsanay wax yar oo beeno carfisa ku daray waxaa hadda ku daraa 2 qaando oo sonkor sokorta 2 qaando oo kaliya waaye intaan adartaan isku qasaa baashi dulsha lagu qasalay ku qasooyaa waxaa waaye tii korontada ma ahan insha Allah asxaabtiisa soo la socda waa tii caadiga oo gacanta cabaara isku qasaa ukuntii sokortii wax dhan inay isku milmaan u baahanahay intaas kadib markay isku milmaan oo aan si fiican u qaso waxaan soo qaatay kastar ama labaniyad si fiican uma arkina uma leh labaniyadeeni wax yar ku soo darsanayna insha Allah waxaa waaye mala wax tastiin way siinaysaa kalarkan wax yar way ku gaduudina insha Allah wax yar qaandada afkeeda hor bisaan ku soo daray insha Allah galabta malabaxina waa malabax nafaqaysan waa malabax wax kala ma fahanteen intaan haddana si fiican isku qasaa ka bacdina waa la arki doontiin waxa hadda noogu dhiman waa cusbada iyo burka oo kaliya insha Allah cabaara isku dhex qasaynaa cabaara aan isdhex gelinaynaa intaas kadib hadartaana waxaan doonanay cusbadii wax yar oo cusbaa ku soo daray tastiga dhanaan iyo macaan labadaba waa laga rabaa Soomahan waxaan kala ku soo darsado wax yar oo subag hadii aad markaas saliid haysatid waa ku darsanaysaa waa qorfo shiidan hadartaan waxa aan ku soo daray insha Allah asxaabteeda qorfihi hadda ku soo darsana bis waa wax noogu dhiman malahan burkeeniya ku soo shubanayna haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah way la socotiin oo maleena step by step way la socotiin hadartaana burkeeniya tartiib ugu soo darsanayna gacanna burkiya ugu soo shubaya gacanna waa ku qasaa insha Allah waxyaabo burburiyosan ka yeelanin ana hadartaan mashiin iyo midna ku qasaay baashan bisa ku qas doona haduu Ilaahay yiraahdo ayadoo mashiin yar fudud waa maaho baashan bisa ku qasana hadii aad jeceshahay waa ku qasan kartaa blenderka ama makiinada cabitaanka lagu shiito waa ku qasan kartaa mid gacanta ay ku taalan waa ku qasan kartaa masha Allah si fiican u soo qasaa asxaabteeda garaac dheer kadib masha Allah waa kana sidaan noogu soo qasmay waa dareem kartiin oo maleena qaabka aan bibiyaha uga soo dhigay malabax mar walba wuxuu ku fiican inuu qafiif ahaado Soomahan malabax marna iyo cuslaanin malabax aad u jilicsan aad u macaan badan oo ku noqonaa mar walba adii aad biyaha ka badisid oo ku sii jilicsanaana dareem kartiin oo maleena sidoo birta uga daadanayo oo bibiyo u yahay haatan diyaar oo yahay waxaan sameysanaynaa birtii aan ku dubi lahayn dab ku soo saaranaynaa asxaabteeda waa tanaa taawadii aan dab ku soo saaranay burshkaana wax yar saliid soo mariyay inkastoo birta aysan ku dhagaynin oo birta wana steak ay tahay haddana wax yar saliid aan mariyay masha Allah waan soo kululaad xabadeena koowaad oo koraysa saas ku soo aan ugu soo shubanay dhinacyada dhan waa inaad ka kala gaarsiisid birta insha Allah si oo malabax culus uusan u noqonin insha Allah tartiib noogu qalala marka uu noo qalalo aan dhinac kale u gelisanayna insha Allah masha Allah asxaabteedu noo qalalay marka noo qalal kadib waatana insha Allah hadartaan noo bislay sidaan dareemayno asiran ka jaraa hadartaan waa gadinayna xogaa wax yar raajicina waxaan isla si fiican hoos kugu gaduuto masha Allah wax saliida hoos lagama marin saasaan u jawaab dareem kartiin oo maleynaa
insha allah asxaabteeda saas oo kusoo wadanaynaa la socod wanaagsan. dhinaca kale u gadina burushka oo wax yar oo been asagoo saliid beena leh aan marinaa. saliid wax dhan aan ka cararooy waa saliid inaa kasoo horjeeda soo maahan. insha allah dhinacaasa wax yar beena marina hadirtaana waa gadina. waxaan baahanaa gudaha inuu si fiican iiga soo gaduutaa tane. marba dhinaca u gadi ilaa uu kaaga gaduudanayo adoona saliid badanna isticmaaleynin. insha allah waa ramadaan waxaa waaye saliidda iyo waxyaabaha la shishiilaayo iyo xilligan oo kale gaaska waa loo nugulyahay ma fahanteen. insha allah malaba xeenin halkaas uga baxayna. hadirtaana waxaan doonanaynaa chicken-keeni oo cabaar noo xariisnaa. chicken-keeni soo qaadanaynaa asxaabteeda. waa kana maasha allah chicken-kii soo qaboobay oo wax alaal wax fiican ah gudaha ka galay. waxaan kaloo haysanaa basal iyo barbarooni. waxaan soo qaatay qoriga oo barbecue lagu sameeyo. hadaa rabtid chicken ka dhigan, hadaa rabtid malaay, hadaa rabtid hilib intaba insha allah waa idin soo wadaagi doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. waxaan soo qaatay qorigii, waxaan soo qaatay hal xabo barbarooni barbarooni waa soo jarjarmaho. waxaan dana soo gelinaa basal. waxaa waaye ma la bixin weli dabka uu sii saaran yahay. dareemi kartiin oo maleynaa qof kaligeed oo fur diyaarinayo. hadirtaan waxaan soo geliyay xabad chicken isla sidii oo kale aan maraa stepka oo marka hore aan soo maray. waxaan soo qaatay basal, haddana barbarooni, haddana chickenki. haddana isla sidii oo kale stepka hore bisaan aan ku soconaynaa. barbarooni dhowr kala nooc adi hadaa haysatid waa isticmaali kartaa. ani hadda halkaan nooca cagaarka bisaan haystay insha allah. iyo basashiina waa soo geliyay waa ujeediin. hadirtaana chickenki aan geliyay. insha allah asxaabteeda waa ila socotiin oo maleynaa xabadaan ugu horeysa idin tusaa kabacdina waa isku soo noqonaynaa hadduu ilaahay yiraahdo. xabadan saana ku sii wadaynaa, saana ku soo dhameystireynaa insha allah. waa basasha barbarooniga chickenki, waa basasha barbarooniga iyo chickenki maasha allah. hadhow waxay soo weydii doonteen qoryahan waxaan kasoo gaday Hayat Market supermarketyada lagu gadaa. insha allah ani hadda waxaan kasoo gatay Hayat Market. asxaabteeda ujeediina oo maleynaa steebyada aan mareyno. xabadan ugu horeeda bisa idin tusaa. waxaa waaye waqtiga waa igu sii dhamaanaya 11 lasii maraya ma fahanteen. adduun dhanaan ii dhiman insha allah. hadda markaan soo dhameeyay oo aan soo diyaariyay dhammaantooda waa kana maasha allah. hadirtaan waxaa dabka soo saaranaynaa birtayna canjeelada aan ku doona ma fahanteen. birtaawada caadiga birtaawada soo saaray wax yar oo saliida ku soo shubay. insha allah dhammaan waa soo wada saari doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. insha allah asxaabteeda qaaliga waqti dheer kadib alxamdulillah ilaahay hawshin waa inoo soo fududeeyay maasha allah. alxamdulillah ilaahay inoo barakeeyo. intii aan haysan ilaahay ha siiyo. kuwa salaada iyo soonka laga aqbal allah naga dhigo. afurkeena markaan soo diyaarsanay qaxwadeeni maxaa la dhahaye cabitaankeeni shurbadeeni timirtii malawaxi barbecue hal xabo malawax iyo hal xabo qore is dhex gashanay ma fahantay. waa isku jiidanay hadda isma faraya u maleynaa wax markaas kadib la sameey lahaay. asxaabteeda qaali qurux badan waa kana afurkeena saano noogu soo diyaar garoobay maasha allah tabaarakallah. barbecue saano noogu soo baxay markii aan soo dubo ka bacdi maasha allah. dhuxula lagu dubaa bir lagu dubo way jirtaa insha allah tacaala. waxaan sidaan idinka dabagay doona hadduu ilaahay yiraahdo oo waqtiga ii saamaxo. malawaxina saan qurux badan noogu soo baxa asagana waa kana wallaahi kaligiis cunaa ku qabanayso. wax kale ku cun ma ku qabanayso ma fahanteen. insha allah tacaala asxaabteeda muuqaalka xaqiisa iska sii inta aan muuqaalka xiga iskaga soo noqon doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.